أيها الإخوة حيث ويديت لي مركا ورمحين والله دلين يروي حقك وصعطه نلش هذا حقك وصعطه جامعات بان كبحي شهادة بان قاطي شقة في عم بان هلي وروى تجيسايا وحاصر دموام مالمه كم لبستم عدد السنين بالويدين دونا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين باكو حكته مالين أما مالين بدكيد نلش يوردم waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kala garan weydaad waxa leedahay fasal العادين kuwii tirin jiray bal hal weydiiyo adigu inay maalin tahay inay maalin badhkeed aad kala saari kari laaday ee bal cid labada ku kala rajaxda hal weydiiyo ba taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baa dooratay marka ayuha alikhwa kelmadaydu marka waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamay yay noqonin inaad tiraahdo shaqadii baan ku mashquulo salaadii baa ay dhaaftay yay noqonin inuu jamacu ku dhaafo yay noqonin waajibaadku inaad ka seexato yay noqonin haddii shaqa lagu siiyo inaad salaada subax soo kacdo dii lagu yidhaahdo shaqadaadu saddexda habeenimay bilaabmaysaa ولدن هيئات كو شقيسا ميلا كو شقيسا ما سفر با لغليا ما شركدا او شقيسا دي ليرا سدخدا بينما ولا سفر يا وسو عرضيا وايو شقدي با ku xidhan laakiin shantii badhka la tukanaya waan kici kari waayay buulay waayo hadafka ka shaqaduna lama beer daraynayo ama ka salaad iyo cibaadaadka iyo janno iyo naar lagu galayaana waxa laga dhigaa wax fudud anigu uma iman inaan muxaadaro idin akhriyo inaan macluumaad idin kordhiyo inaan macrifo idin kordhiyo uma socdo waxaan u socdaa inaynu saxno hadafka aynu raadcaynayno adiga lagaaga baahan yahay hadafka wixii lagu gaari lahaa cilmiya raganimo ah xoogsiya dadaala adiga laga rabaa inaad la timaado laakiin inaan hadafku inaga qaldamin oo shay waliba wixii loogu talagalay markuu qabto ayuu qimada jooga saxayka maaha ayuu halka ugu sarreysa jooga haddii laakiin wixii loogu talagalay uu qaban kari waayo waxa la waa lagu khasaaray مثلا ilaahay ambiyada markuu amaanayo quraankiisa muxuu ku amaanay nabi maxamed saacadka la amaanayay saacadii la sharfay ee cirka loo waday la dheelmiyay al-isra wal mi'raj uu galayay ilaahay muxuu leeyahay سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده أدوني محقيقي نبي عيسى محل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إذن قفك وحو قف نمدي سعداتي markuu rabbigii aqbalo adoonnimadiisa markuu qirto markuu jidka adoonsiga uu maro markaasuu wixii loo abuuray gartay wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun markaasuu jidka haya ama haday noloshaadu lacib iyo lahwi noqoto haddaad garan weydo meel aad u socoto qiimo ma laha ahdaaftan yaryare soko oo dhami markaa hadday waxbarashatay hadday guursitay hadday xoogsitay وين نقدان أهداف أخدمينيسة هدف كوين يا أهمال أنت قيامينك بدباده يا حباشة مركات بلوضه سؤالها اخترت الويدين دونه إن تسسحة وجوابي كرته إن كيرين أو باقين أو قرقريرين إن تكمل نغطة كوى ربي سوغه جواب تصح داكو سقمه آخر مركات سسوتا أكتر الله يدهده قدم عبد ما دقاقيس إلا ينك جوابته مويانا سؤالها كوا سيدا صح دا uga jawaaba marka jidka siraad la maro ee uu noqdo meel madow oo dhuuban oo fiiqan oo cid dul mari karin oo qof iyo amalkii uu marinayo hadafkaagu inuu xadidmo oo ilaahay wuxuu baa badbaadaya wa nunajji alladheena taqaw ahlu taqwa inaad ku biirto idan ayuha alikhwa هذا مسألة قراتان وحبا إذا كما مقرأ هذا مسألة قراتت واحد كبير سكوى إلى ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز العظيم
haddaad gaalka ka xoog badatana waa dalika fawz alcadiim aduu kaa xoog batana waa dalika alfawz alkabiir adigu se jidkii baad haysaa adigu waad guulaysanaysa adiga shardi maaha inaad guulaysato ilaahay qur-aanka muxuu ku tilmaamay waka'ayyin min nabiyin maxaa ku xiga qaatala macahu qirada kale maxay sheegaysaa qutil soo maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka imisu ku tilmaamo nebi la dilay fariiqan koox waa disheen baa ilaahay idhi kooxna imisaa nebi la dilo nebi la beeniyey waa guulaysteen nebigii la dilayna waa guulaystay kii la beeniyeyna waa guulaystay waayo isagu jidkii kama weecanin loogu talagalay adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel sokay adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdaadoo rabbigaa caabudaya adigoo dariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo dariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro